حديث كان لحي طبنات أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الله كرها لنقضي أسيقي وآبيهس قال وحيري أتى وحا إماضي رجل نين النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيو إماضي فقال مركز وحيري نيكي يا رسول الله رسولك إلهيو حدثني إي شيك أو إي ورن حديث إي ورن واجعله كي الحديث كاس mid gaaban ha igu fogeenin mid dheerna ha ka dhigin bal ii waran ii sheeg wax ii sheeg diinta wax iiga sheeg xadiis ii sheeg xadiiskaas waxaa ka dhigtaa xadiis gaaban oo aan fahmi karo aan xifdin karo mid dheer ha ka dhigin faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam ninkii wuxuu ku yidhi salli tuko salaata muwadacin mid wax sugootinayo salaadiis oo kale tuko كأنك سيدي تراه أذيقو أركاي أوكلا وحاد أتكتا أذيقو ربي سبحانه وتعالى أركاي أوكل أتكو فإن كنت حداتهاي لا تراه مدعان أركن الله سبحانه وتعالى فإنه أسيقا يراك كو أركايو وي أسكا قورسو أو إسكاغتك مما في أيدي الناس وحا كجرو دتك قعموهو إسكاغتك تعيش ونورانيسا غنيا حالة تايمت أو حضن أما ديغتون وإياك وحان أكلا دقايا أذيق إيو وما شيء يعتذر لغو عذر دارتو منه كاس حقيس اسكي إلالي مركا حديث كان وحولي هاي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نبي عليه الصلاة والسلام يا قفو إماضي مركا سحوكي رسولك إلهيو حديث إيشك وإي ورن دينة ربي سبحانه وتعالى وح إيغشيك أو حال حديث إيشيك حديث كاس نوحات كدك تا مد قابن كدك مد قابن أو لفهمي كار أو لحفظن كارو كدك nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi warniyo marka koowaad tuko waxaadna tukataa sidii qof wax sugootina oo kale salaadiis oo kale tuko yacni sidii adigoo hadda geeriyoon rabo oo kale ama adigoo beri geeriyoon doono salaada kugu dambeyso aada leedahay bal salaadana igu dambeyso si fiican u tukanaya salaadaas oo kale tuko wey sidoo kale waxaad u tukataa sidii adigoo rabbi subxaanahu wa tacaala arkay oo kale u tuko haddaad tahay mid aan arkayn rabbi subxaanahu wa tacaala asigaa ku arkay allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaad ka quursataa ood iska ilaalisaa ood iska dhaaftaa waxaa dadka gacantooda ku jiro iska ilaali marna ha damcin waxa dadka gacantooda ku jiro waxaad noolaanaysaa adigoo ah qof hodan ah qof taajir ah qof qanacsan adigoo ah ayaad noolaanaysaa sidoo kale waxaad iska ilaalisaa wax laga cudur daaranayo waxyaalaha khaladaadka iska ilaali marka koowaadba ka digtoonow hadhow intaad ka cudur daaran lehed aad dhihi lehed warsaanay noqotay warsaana intaad dhihi lehed marka koowaad iska ilaali ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka markuu tukana inuu tukado salaad muwadaca sidii qof wax sugootina oo kale rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa ku arkaayo haddaadan arkaynin sidoo kale waxa dadka gacantooda ku jiro inaad iska ilaaliso sidoo kale khaladaadka iyo dadka inaad khalad ka gasho inaad iska ilaaliso hadhow intaad cudur daaran lehed marka koowaad iska ilaali